Ibrahim Saxardiid waa mid kamid ah ganacsatada magaalada Hargeysa keeni jiray beedka amaba ukunta hadba saad u taqaano taasi oo dalka dibadiisa laga keeni jiray waxaan u cabasho ka muujiyay cashuur badan oo uu sheegay inay ku soo rogtay xukuumadda Somaliland taasi oo sababtay in gabi ahaanba beedkii laga keeni jiray dalka dibadiisa uu istaago marka laga reebo mid aan badnayn oo sharci darro wadanka ku soo gala run ahaantii ganacsatada dalka dibadiisa beedka keenta way fara badnaayeen qaar wadamo badanna uu ka iman jiray localkana beed baa ka soo bixi jiray intaas oo beedado isu yimina waxba isma yeeli jirin dhammaan way dhamaan jireen wax dhibaatana isku meehayn markii dambe adigu waxa dawladda u dacwooday oo maxaan ku raadayay dawladda warbeena u sheegay qoliyahan localka beed ka soo saaray ee maandeeq ay ka mid ka tahay maandeeq iyaga oo sheegay in dalka ka fargareynayaan annagana maxaan ku raadayay annagana sidaas cashuurtiina lagu dalacay dawladduna runtii dhinac kaliya ayay dhageysatay muddo sanada maanan keenin beed waa ka bakhaaradeedii aan stoorkeygii haddaan beedka kugu soo rogi jiray uu xidhan yahay waxay sheegeen iminka daraad waraysi ay sii daayeen in ay beedkii localkiina ay ku filaadeen dalka dibadiisana rabaan inay u dhoofiyaan iyagoo sheegay khaasatan Djibouti iyo Puntland taasina waa war aan wax kama jiraana annagu beedka aanu keennaa uu ka jabnaa kan sixirkan ay hadda ku iibinayaan oo xilligiina laga joojiyey sanadkii hore bilowgiisii bay ahayd maalintii laga joojiyey ku guuleysteen ayay sixirkii ay siinay suuqa uu ka marayay beedku cirka geeyeen ilaa maalinka maantana sidii uu cirka u marayaa marka waxaan xukuumadda ka codsanaa in ganacsatada waa isku wada mid ah hal qolo intay dhageystaan ganacsatadii kale iyo dadkii kale shaqaalaha ahaaba aanay baabi'in cadaaladda ay eegto oo xogta suuqa taalana soo ogaadaan dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo la hadlay Home Cable TV ayaa waxay sheegeen in beedkii loo xiray shirkad laga leeyahay dalka gudihiisa haddana wax soo saarkeedu aanu ku filnayn dalka loona baahan yahay in la keeno beedkii wadanka dibadiisa laga soo dhoofin jiray waxa dhacday in beedkii muxuu ahaayay dibadda kee markuu istaagay ee tartanka suuqa kuula jiray marka koowaad inuu qaargaroobo marka labaadna in laba waayaba marka saddexaadna in cash laga dhigo waxa weeye markii hore waxa ay beedka marka uu joogo $40 meel ilaa $42 laga siin jiray mar hoos buu uga dhici jiray hasaatee muddooyinka dambe marka $50 iyo wixii ka sareeyay weeyaan waxa markaa taa sababay in beedkaasi markuu ka baxay qadkii uu yaraaday waxaanu se ka cabanaynaa in beedkiina laga joojiyey oo ay soo carqaladina soo dhex gashay oo qolo wadani ay yiraahdeen waanu soo saaraynaa beed wadanka ku filan oo nakafeeyana ayay keeni waayeen oo wixii soo baxay ay yaro meherado kooban u siiyaan waanu yili beedkii soo saartaa mana soo saari kartaa beed dalka oo dhan ku filan waanu laanahay wakii dalka marka waxaan odhanayaa kan dibadda haloo daayo amba kan dalkii kuma wada filnee qiimihii kana ka jaban dalka kan dibadda ayaa ka jaban dibadii baa jaban kii dalka qaaliya lama helayo waana wax yar marka kuma wada filnaa kan shirkaddan dalku in buuxarakeed waxa kooriya la beed oo heradaada yaala beedkan aad iibinaysaa makii dalka waa kii dibadda ka jaban Yemen inta safar buu soo maray cashuur buu soo maray kii dalka waanu ka jaban intuu doono 240 weeyaan kani kadalkuna 3 maraya waan lama helayo iyadoo xukuumadda Somaliland ay fursad siisay shirkadaha laga leeyahay wadanka gudihiisu inay beedka gaarsiiyaan gabi ahaanba dalka haddana maanta suuqyada magaalada Hargeysa waxa yaala beed si sharci darro ah wadanka ku soo galay haddana ka qiimo jaban kan ay soo saaraan shirkadaha wadanka gudihiisu Sagal Baldeeq Home Cable TV Hargeysa